ومهمة إلا ذا walaaltinimada ku dhisan iimaanka iyo siyaabaha iyo sifaalaha loo xaqiijin karo walaaltinimada iimaanka ku dhisan marka la leeyahay waxa baxaya walaaltinimo kasta oo nooc kale ku dhisan ama deegaan ku dhisan ama qabiil ku dhisan ama dhalasho ku dhisan ama juqraafi ku dhisan wax ama ku dhisan kooxaysi ayanka noocay u rabtaba ha ahaatee walaaltinimadaasi waa mid ka duwan sida asalkaana waa iyada saas darteed mowduuca aan ka hadlaynaay waa mowduuca walaaltinimada noocaasa ma aha walaaltinimadii la wada dhalanayay oo hebel hebel iyo hebel hebel oo aabbo wadaaga ama hooyo wadaaga saas ma aha laakiin waa walaaltinimo taa ka xoog badan oo ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo haddana diin ku dhisan iyo walaaltinimo dhinac kale haddaan ka eegno haddii aabbo la wada dhalay xiriir xooggan uu sameynayay aabbo dadka wada dhalay ama hooyo wada dhashay xiriir uu sameynayay haddana diinta la wada aaminsan yahay xiriir ka sii xoog badan bay samaysaa dhowr qodob ayaynu u qaybinaynaa haddii alla ogolaado oo ay ka mid tahay marka koobaad inaynu macnaha ay arrinkan uu leeyahay aan soo dhaweyno oo bal tacriifkeeda aan tilmaano tan labaad boos intee la eg bay islaamka ka joogtaa makaanadeeda iyo qiimaheeda tan labaad waa maxay xuquuqda ka ratimaysa qodobka afraad siyaabaha loo xaqiijin karo oo loo hirgelin karo maxay tahay tallaabooyinka iyo miraha iyo raadadka wanaagsan ee ka dhalan kara ee laga faa'iidi karo faqrada koobaad ama ciwaanka koobaad waxaynu oranaynaa marka la soo ururiyo al-ukhuwa al-iimaaniyah waa maxay macnaheedu waxay yiraahdaan culimadu waxay ka timi ereyga luqa ahaan ama masdar ahaan baba akha oo ah in dadkan uu qofkan ama ummadani ay walaaloobeen waana tadaamun iyo isku xirnaan iyo jacayl dad isku xiran oo isjecel at-taakhi waxay kaloo ku tacriifiyaan marka istilaaxa laga hadlayo waa calaaqatun qawiyatun mutabaadalatun qaa'imatun ala taqwa Allahi subhanahu wal iimaan bih wa hiya tu'adda bi adraafiha ila al-mahabbati fi Allahi ta'ala بالإضافة إلى الحب والإخلاص والوفاء والثقة والصدق بعيدا عن السعي إلى تحقيق أي غرض أو هدف دنيوي ولا التنمو إيوه حرير حقا أو كل سندين تلو ذا آمن سيحي حرير كاس أو كم مضح بنان وحكست أو دن إيه هدف إيه أجيدا الدنيا ضدك شركوبة oo xoolaha isku darsaday waa walaalo shirka dadka wada dhashayna waa walaalo wada dhashay dadka koox ama xisbi ama group uu ka dhaxeeyo waa walaalo dantaasi ay ka dhaxayso laakiin intaas oo dhan kuwaas waxay kaga duwan tahay tan iimaanka ku dhisani waa shay diin ku dhisan oo ninkan inaan wada dhalanay ma ah in aan xoolo isugu kaaya jiraanna ma inaan daris nahayna ma inaan wax wadaagnana ma laakiin waa inaan diin wadaagno sidaas ay ka dhalanaysaa walaaltinimadaas waxay kaloo yiraahdaan waa sifatun mulaazimatun lil iimaan waa tilmaan iimaanku uu wato iimaanka markaan yeesho ayaa qofkani si automatically wuxuu u noqonayaa walaalkay bal u fiirso warkaas كدبنا مسلمين تيسكو حريسة على أساس الدين في حب الله سبحانه وتعالى طيب سأسترتد بإلهي وحليه إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تكلية أمبا ولا لا أداة الحصر بالغهر مري المؤمنون إخوة ويكحل ليرته مركا اللي يرادو إنما المؤمنون إخوة كلي قد أمبا ولا لا نبأه ولا تابن كرا سبب ولا التنمى ذا كلابه نقص بقى ملك جشرة نقطة اللباد أنا قطب كلباد مركز أوجد ابنه بوس إنتل مكانه إنتل بي ولا التني مذني كشوكته وحلقيا بقى مجتمعاتك أن أرنك إسقى هي باشرين أما أن تجابيني إني سلبوا فهم كريم
mujtamacaadka xiriirkoodu uu qabyaalad ku dhisan yahay mujtamacaadka xiriirkoodu hanti wadaag uu ku dhisan yahay mujtamacaadka xiriirkoodu uu ku dhisan yahay deegaan mujtamacaadka qowmiyad iyo ummadnimo afrikaan yurubiyan american qowmiyad ku dhisan mujtamacaadka noocaasihi waxa laga oo aan la falgelin walaaltinimada muddo ku dhisani waxa ay natiijadoodu soo baxaysaa marka dhinacyo badan la iska fiiriyo farqiga u dhaxeeya qofkan wax badan buu la wadaagaa oo aan tilmaami doono oo tusaalayaal aan u soo qaadan doono oo uu kaga duwan yahay walaaltinimada noocyada ku dhisan waxa kamid ah haddaynu dhowr jaanib ka eegno ahmiyada iyo makaanada ay siisay shariicada islaamku al-ukhuwa al-iimaaniyya waa mabda'un rabbaaniyyun wa tashriicun samaawi imtanna Allah subhanahu wa ta'ala bi hadhihi al-umma wa mabda' iyo tashriic iyo sharci dejin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu keenay oo ummadatan ugu minad sheegtay waxa cajiib ah aayadan markay soo dageysay dadkii ay ku soo degtay waxay ahaayeen dad wada dhashay oo waligood ehel wadaagay laakiin maca al-asaf ehelnimada ay wadaagaan iyo wada dhalashadaasi in ay naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda iyo qiimahooda iyo karaamadooda ay isku badbaadiyaan ma gaarsiin saas darteed ba iyagoo walaalo ah oo wada dhashay bay dagaalamayeen oo isdilayeen oo isdhacayeen oo isu gabiyeen oo gabay xun isu tiriyeen oo isbarakacinayeen sharciga iyo diinta markay qaateenna ilaahay baa ugu minad sheegtay waxay noqdeen walaalo qofku uu yiraahdo anigu aan dhintay walaalkay biyaha kan hal la siiyo markaas ilaahay ugu minad sheegtay maxay tagtay marka wada dhalashadii reer hebel lahaa waxa la oran jiray Aws iyo Khazraj laba qabiil bay ahaayeen Madiina ay deganaayeen markay nabi Muhammad sallallahu wa sallam alayhi soo dhaweeyeen oo beledkoodii Madiina ay ku soo dhaweeyeen oo iyagu ay bogga iyo beerka gashadeenna nabiga wuxuu u bixiyay magaca la yiraahdo al-ansaar kuwa ilaahay u gargaaray iyo diintiisa ofirs markaas quraanki soo degay waxa kamid ahaa iyadoo la leeyahay wadhkuru إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واحد خصوصتان مالكي أدعدوا أن إسبحين إسوا هيدين ونمبا ننك محاكو راحضاي أن أركو أسبحيني وحا أكد لينا أي هيدين وخيره بليهي دقال وحي الحلقة كهر دعي نمانك إيجا أهي وحي إسكاقد لين dhammaan odayaashii reerka ka dhaqaaqay oo ugaasiyada iyo ningarboodka iyo akhyaarta iyo ragii kulli reerka macnaha u lahaa labada qabiil bay iska dhameeyeen oo naka dhigeen nin iyo nin baa soo haray qof dhifa maxay tahay cadaawada halka gaartay maxay u badbaadin weyday walaaltinimadii wada dhalashadu dhiiga iyo maalka iyo hantida iyo wada noolaanshaha maxay wax uga bedeli weyday xaaladii lagu sugnaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu minad sheegan inuu iyaga ka dhigay dad wada dhashay laakiin wuxuu ugu minad sheegtay walaalo iimaan ku wada dhashay oo ku midaysan kadibna ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii isu jeclaaday naf iyo maal iyo wax kasto ay jecel yihiin wada wadaagay oo wada qaybsaday طيب waxa kamida jawaanibta shariicada islaamku aan ka dareemayno siday ahmiyad iyo makaana u siisay shariicadu waxay adkaysay xiriirka walaaltinimada iimaanka ku dhisan markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa hatta xaalad kasta oo dadka soo dhex marta aayadani waxa ay ku xirnayd siyaaq aayad ah oo laga hadlayay muslimiinta iyo xuquuqda isku leeyihiin markaas waxa la yiri xuquuqda muslimiintu ay isku leeyihiin waxa kamida hadii laba kooxood ama laba qabiil ama laba group ama laba magaalo oo kamida ay dagaalamaan inta kale waxay xaq u leeyihiin inay kala dhiciyaan oo ay isugu jeedaan kala dhicinta hatta haday kalifayso tii la qaban waayo in la isugu tago
markii dagaalka iyo dadka dagaalamay iyo waxa laga hadlay ayaa waxa la yiri innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniintu maadaama kaligood ay walaalayihiin fa aslihu bayna akhawaykum walaalihiin dhexdooda islaax iyo nabad iyo wada noolaansho dhexdhiga kadibna wattaqullaha mas'alada marna hadayalsanina ilaahay waa baqa la'allakum turhamuun in la idin naxariisto ayaa markaa suurta galaysa oo ilaahay xaqiisa laga helayo fiiri warka culayska uu leeyahay iyo dareenka uu leeyahay dadkii dagaalamayay baa waxa la leeyahay walaalihiin walaaltinimadii ma dhumin iyagoo dagaalamayo oo aan isbixinayn limaada maxaa dhacay iimaankii wali waa taagan yahay dulmi iyo dambi baa la galay laakiin sifadii iimaannimadee lagu walaaloobay wali way taagantay ولذلك wuxuu leeyahay الإمام الألوسي مفسر كاوين كتاب كيس الروح المعاني وإطلاق الأخوة على المؤمنين من باب التشبيه البليغ وشبهوا بالأخوة من حيث انتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية وحليه تشبيه وحل مرويه إلا يرعضوا إنما المؤمنون إخوة sababto abu yiri waxa lagu shabahay walaaltinimadaas inay yihiin ummad hal nasab iyo hal asal u nasab sheegata oo ah iimaan iyagoo adduunka aan ku wada noolayn oo aan isku qaarad joogin oo aan isku qarni joogin oo aan isku duruuf ku noolayn oo aan isku dawlad ahayn ayaa haddana waxa ka dhaxeeya xiriirkaas innaga iyo nabiyullaahi aadam walaalayna awowgeen inuu yahay ka sakow oo maxay tahay waa walaaltinimo iimaannimo ku dhisan innaga iyo intii ka dambaysay walaal baynuna oo intaas dariiqaas islaamnimada iyo iimaanku u walaalaynayo saas darteed baa arkaysaa xaalad kasta iyo marxalad kasta iyo waqti kasta inayn xuduud lahayn walaaltinimada mabda'aas nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi waxa ina tusay ahmiyadiisa magaalada madiina markuu sida u soo galay shaqooyinkii koobaad oo uu qabtay waxa kamid ahayd laba shaqo shaqadii koobaad waxay ahayd inuu masjid dhisay shaqadii labaadna waxay ahayd dadkii walaalaha ahaa ee qaarna ka soo qaxeen magaalada Makka in maalkoodii iyo awlaadoodii iyo dadkoodiiba lagala haray iyo qoladii halkan sii joogtay ee reer ansaareed in uu isku xiray oo waliba qaab iyo farsamo wixii ay yaqaaneen ah uu isugu xiray oo yiri hebel iyo hebel walaalaatihiin hebel iyo hebel walaalaad la isku xiray markaas waxay gaartay ninku in uu ka jeclaado kii hooyadii iyo abiha ay dhaleen u fiirso sababtu maxay tahay mabda'ani muhiimadda uu leeyahay buu nabigu dareensanaa waxay yiraahdaan culimadu markii koobaad ba nabigu labadan shaqo uu qabtay mid waxay xoojinaysay adoomadan iyo xiriirka ilaahay ka dhaxeeya waa masaajidka isku xirkan walaalayntaana waxay xoojinaysay xiriirka ka dhaxeeya iyaga dhexdooda bal u fiirso waa in la xoojiyo xiriirka adoomada iyo ilaahood iyo in la xoojiyo adoomadan iyaga xiriirka dhexdooda ka dhaxeeyo oo la isu sheego oo la isu tusaaliyo waxa ay isu yihiin oo farta la isugu fiiqo dayib muhiimadda uu leeyahay bay ku tusaysaa muhiimadda uu leeyahay ayay ku tusaysaa waxa kamida mabda'an isaga ah saynu sheegnay inaysan duruuf kasto timaada iyo xaalad kasta iyo dambi kasta oo la kala galo inuusan saameyn ku yeelanayn ilaahay wuxuu tilmaamay fi suurati al-baqara nin wiilkiisi ama walaalkiis la dilay deetana waxa sharcigu xaq u siinaya imma inuu diloodo ama inuu cafiyo ama inuu diya ku bedesho soo sidaas ma ahayn markaas waxa la leeyahay haday dhacdo qofkan inuu diya ka qaato ninkan walaalkiisa si wanaagsan oo macna leh diyadiisa ha uga qaato waa ninkii wiilkiisa dilay ama walaalkiisa ba waxa la leeyahay
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قفكي ولالكيس حقيس لغا عفيه كان وحا لغا ربا وحفيي اتباع بالمعروف إنه سوى ناكسن وحقاكسن وقاط كان كاننا وحا لغا ربا وأداء إليه بإحسان سوى ناكسن وقروح لأقبنما لإنه أقود بيه ninka walaalka dilay ama wiilkaaga dilay ama aabaha dilay baa waxa la leeyahay min akhihi hay ku tusaysaa walaaltinimada inayan go'in xarigani waa xarig inta ka xoog badan waa xarig adag waa xarig bir ah Soomaalidu soo ma oran jirin saddex xarig baa jira oo mid gar ah iyo mid cadiir ah iyo mid bir ah midka cadiirka waxay yiraahdeen la xargaha cadiirka waa xariga ugu jilicsan وصاحب لماذا لا وقف اسك صاحبي سفرود بو كغا سو فهم كان waxay yiraahdeen yeesha ama garka ahna waa xididtinimada wuxuu baahan mar walba in la subko oo la hagaajiyo hadii kale waa go'ay soo faham kan birtaana waa walaaltinimada iimaanka ku dhisan marna ma go'i karto طيب waxa kamida أهمية إيه مكانة إيه بوسك إيه تاجنتهاي إن تطبيقين إيه أهرنتن إن الهرجلياي شرع بوحو كرجي وحيالها واجباتك سننتك مجرته وحيالها فضائشك مجرته وحيالها إسكفي عنك مجرته وحيالها مشروعك مجرته ومن أوجب الواجبات إن أدوق قفك كان ولالك النقضة اختيار إيه دارش الله جامر ربا inaad adigu go'aan ka qaadatana kuma xirna laakiin ilaahi ku abuuriba waajib kaaga dhigay saadan salaada khiyaar uga lahayn ayaadan walaalka muslimka inuu walaalka yahay khiyaar kamalihi waxa kamida muhiimada iyo ahmiyada iyo makaanada iyo booska aan ka dheehan karno ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu amaanay dadka sifadan leh markaasuu wuxuu leeyahay fi suurati tawbah والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم رجع مؤمنين تا يدمر كمؤمنات كاهي إيجا حجال السوء أو متبمتك كالحجال أوه وتلمانتك وبعض الله تلمامي دبا waxa laga keenaya salaad inay tukadaan iyo zaka inay bixiyaan iyo ilaah inay ateecaan iyo amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tilmaamaha inay leeyahay laakiin maxaa lagu bilaabay ba'dhum awliyaa'u ba'd iyaga xigaal isu ah sifada iyo tilmaanta xigaalnimada ahi u fiirso in ay ahmiyad leedahay oo ay muhiim tahay ba horay loo geliyay هذا الشيء إسكا فضود أو إسكا كوابان أي تهي دبا لقل له ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خليفة أفراد المسلمين أيها وحل قولي إنو يري عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وحاويري ورنميه walaaltinimada diinta ku dhisan ogaada sababtoo ah buu yiri waa saadkaaga adduunyo aakhirada sahaydaada ma waydan maqal buu yiri qiyaame dadka ahlu naarka ah marka la geliyo naarta waxay ku calaacali doonaan fama lana min shaafiiciin qof noo shafeeca qaada ma haysano walaa sadiiqin xamiim iyo walaal diin aanu ku walaalownay oo noo naxariisto ولذلك با waxa dhici doonta dadka mu'miniinta ahi inay u shafeeca qaadaan fiiri ina hebel idinku wada dhashay reer hebelnimo kuguma shafeeca qaadi karo oo qiyaamo ilaahay ka yeeli maayo ilaahu hebel isku hooyaan ama isku aabbaan ama isku magaalaan hayne xoogaa maadaama dambi uu giisi uu naar galiyay iimaan wuxuuna uu leeyahay loogu shafeeca qaadi karo ilaahu ergaan kaaga ah lama yeelayo laakiin waa la yeelayaa ilaahayow walaal aanu diinta macrifo iyo saaxiibku ahayn buu ahaa ilaahayow waa u shafeeca qaada وفرس ولذلك
ba xataa dadka mu'miniinta oo qaraabada ah oo ehelka ah oday iyo wiilashiis ama gabdhihiis ama xaaskiis ama caruurtii familygii markay jannada wada galaan kan ugu darajo sareeya booskiisa la isugu geenaya oo inta kale uu shafaaca qaadaya u fiirso والمعنى إن لا ظهر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هاي كتو سيسان ولا التنمد وحي إترتي إن حتى جنة الله يقول شفاعة قاضي إن أنقله لكن تي غير هبل يتي إن هبل نمو يتي ديغان نمو يتي قاردات حبا إما ترين وفرس حبا إما ترين نارنا إذا ما صاري كرتو جنة الدرجة يقوم الدلقادي كرتو طيب انت هدان كذا قدبنا النقطة داس تنصدح هذا وحين أرانا حقوق ضدك كاسي مركز إسكوليه النوع وأنه نري إله بقى إسكو حري وضد أهمية داس أي شريعة سيسا حريرك كده حية وأنه نري فائدين كاسا إلا ضحي يكون أن دبك شيء جدونه وأما حي حقوق ضدك كده حية محو يقول لي هينك ولا كان أن دين تكون لا لوني حق يقول لي كان أنا وكل يوم حاكم ده لمبر 1 وحاكم ده الأمر بالمعروف وناب وحكستو أن وناب أوجهي إن أن أسميه وفرس صلاة سنتكن وإن أن أمراء وأن كعل عليا سبب وحن جعله نار إنه كبد بعضه وجنة قرب وحن ركيسه دقل حمية أخلاق حمكو هذا ليه وإن أن كنت لقلا وناق فرا وأن معروف كفرا سيء أرنتا أوجا ويسجد بدله النهي عن المنكر باكمده حمانته إن كريبه ولا الكي أدم بكسعة وقتل كسعة سو النبي قمورا انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا الك جر يجر دربه أهيلي هدو جر له يهوان وجرنا مركو جر دريه سدايا لنا جنتك كقبوي النبي صلى الله عليه وسلم جر بدوب قبو سو قف دليه سو بلاد سمينيه سو دع سمينيه قعنت كدب لماذا حقق كبوليه هيبا وحي صحيح النهي عن المنكر وحكم إذا إفشاء السلام نبي قصده تلمامي نبض جودهان إن الله باهي هدنا مركز تو أتراه السلام عليكم إن الله كلهم تو إن أتراه وحلاقي أبادتكم إن إسكت أي صداع لكن كلمدني معنى وين بيلاده سيدا نم بلك وقص عضا إنه كسلاماي وما بدنا رمينه كدله لكن ورقن كيسفة اللي هو يقانو قف وناك يا خير كوضة قلبي جيسو إنه كفر هنا ويكتصيسا السلام عليكم وركوكي هذا ورحمة الله وبركاته ما هي كتصيسا إنه كو قلب فريه إنه سن عقدت كو قبل إنه سن عداوت كو قبل نين عداوت كو قباي إنه كسلاماي ما سهلنا وحكم ده تشييع الجنازة مركو بنته إن قبرك أراعده سببته أو مالنتك قدام بيسي هذا ما أنت الراعين قربات واحتريسا بقنا كصومالي وما بدنا حقوق اللي كل أولي النبي يقول حق المسلم على المسلم 6 بيكمته وحكم إذا عيادة المرضى حلقة كهر حالته كجري سقوا سريرته يلا وين تطبقتها وفرس أدنى فائدة كهليسة اسنا فائدة كهلية مركا وأدو عينيسا قلبك أدو قبو جنيسا محاكو راحضاي وأدو عينيسا مروا البوحة أدو عينيسا عفو إيا عافمات هذا الإسكاء إلالية ضدك جهنم أمرونا إنا تراهد الإله ولا بدأ دارود بيدو سيداء أما تراهد الإله وحوي هدي تيسي تهارا وفضوضي هديك رأى هذيك محبة كجري قلب جيس داوع أتكس ماينيسو ما ملاين كريس إله عافمات سي إله دم جيس داف إله نحريس إله كبد القاط سيد هذا هذيك جريدة وحبك أمجن هذيك شغل هذا ما لكن قف كان دعاء وناد يا قلب قبوجين وبيمو لكن مشكلة يدب يبلها هكو أبوري وحكم ذا التشميت مركو هندي صه أو يراد الحمد لله يرحمك الله به ومهمة يكون فرد محيطة دوام بي أقادين علماء كهذا الشيء طبك حديثك أما سعافماتك حالة الله كل موقفكم مركو هندي صير نبي محمد نكوني أفر بقول صنا كهر بوعيري قفكم مركو هندي الحمد لله هذا وحيرا هذا البريكسجاس وقفكم هندي صير
wadnihiisu wuu istaagaya haddii wadnahaagu istaagana maxay kula tahay xaaladaada waa xubinta sikin hadday istaagto wadnuhu qofku uu khalaas yahay ilbiriqsi hadday istaagto saas darteed wax ilbiriqsi ka yar markuu istaago oo aad soo noqoto maadaama aad qariibun bilmowt aad noqotay alxamdulillaah ilaahay aan idilin caafimaad siiyey adiguna markaa waa inaad tiraahdaa yarxamuka allah ka farxi وفي إسناد عكل وكوسو علينية التشميت فرح قلين وحكم إذا التعاون على طاعة الله إن أب طاعة إلهي أقوك هالميسو فيري سيدان إنه المسجد كأفر إنه التعاون على طاعة الله هو إنه صفك مساجد كقرب كإسكو قبرنه إنه مروضة صونه إنه مروضة حجنه إنه مروضة عيدنه إنه مروضة تكنه كل وامحي وحاصلا التعاون على طاعة الله maxay kula tahay subax walba inaad masaajidka iman lahayd hadaadan qof ugu timaadeen soo kugu adkaateen hawa kugu adkaan lahayd maalinta wax laga yeeyo wali aad gurigaaga iskaga tuko hadaad qofba ka weydo meeshii saas darteed التعاون على طاعة الله walaal aad diinta u garabsato oo jihaad kula gala oo salaad kula gala oo kula sooma oo kula xajiya oo khayrka kula sameeya oo waxa weeye maxaan ku raacdaa aad isu kaalmaysataan wax sahlan ma waxa kamid ah ikhlaasu nusxi wax kasto aad khayr ugu ogtahay inaad si daacada ugu sheegto waa kula tashaday guur buu kala tashaday ganacsi buu kala tashaday dhismu kala tashaday xaalad kale kala tashaday waxba ha ka hakra talo wanaagsan si saas darteed ayuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi ummadiisana amray saxaabigi jariir ibn abdullah al-bajali min hadith muslim fi sahihi محويري نبي محمد بان وحن بيعة كلا قلي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أنا نكتجن ونحجاجيه زكاة إن ديبه قف كستاء مسلم أنا إن النصح أصمي حنكر هذا نصيح بحال هذا وخير وانا أقول شران إن أنا كجابين إن أنا نشاق مركزا واحد بعضي أي وريان إن ويل أدر صدي إن أفرس كقطي oo yarniyo faraska niga iibi markaas wuxuu yiri oo intay iga siinaysa suuyan 100 baan ka siinaya suuyan tusaa u eegay faraskaagu 100 waa ka badan waa ka qiimo badan yahay ee laba aan kaaga dhigo suuyan haday iga dhig si fiican buu u eegay wuxuu yiri wali waa ka qiimo badan yahay saddex aan kaaga dhigo sidoo u lahaa ayuu 900 ka siiyay marba u lahaa uu ka qiimo badan inta aan kaaga dhigo markaas uu xadiidkan wariyay oo wuxuu yiri نبي محمد بان بلن كلا قال قف مسلمة وح نصيحة وجرت إيه وناق إن أنا كجابين وفرس وحوله سي وحأبو نصيحين وحكم ذا النصرة والتآزر إن أتجرب يهيل النقطة وأعظم جرب كيس كبه وهدي عل عدو وهيستآذن بيبين وأوسن هيل وكجبه وأوسن كواين التآزر inaad garab iyo gaashaan aad u noqoto saxaabada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi oo fiirso iyagoo kala ummad ah oo Abu Bakar oo Quraysh ah iyo Bilal oo Afrikaan ah iyo maxaan ku Xabashi iyo ninka la yiraahdo Salman oo reer Bershiya Farisi ah iyo Suhayb oo reer Room ah oo maxaan ku raahdaa Yurubiyan ah ummadaha noocaas oo kala duwan Soomaaliya ayaa waxa dhacaysay inay garab iyo gaashaan isu ahaayeen oo walaalkiis hooyadii dhashay uu kaga kalsoona badar waxaad ogtihiin markii dagaalku dhacay ayaa Mus'ab ibn Umayr waxa ka hor yimi nin walaalkiisa oo soo qafaashay nin kale oo ansaari ah markaas yiri war walaalow war iga dhig ninka isita waad aragtay waa liiga radkaaday waa la soo qafaashay markaas wuxuu yiri adigu walaalkay ma hidi isaga walaalkay وفرس لماذا هو يدي صعب الشيء وهو الكيس بمعنى وحيكوك لا تجين كان دين كان وحيكوك سوي ماذين دينه أصل كمرك ولا الكاس هذا الدين تكون ولا لودان ولا أبئي هو وضع علينا أما متكم إذا أقول علينا وياي يدو حقوق الإرادة حقوق الإرادة ويد وحكم إذا إجابة الدعوة هدي أكوي رأينا أجبته هبلو إيه مو بكين ورنقتك ما حق ما واجب بيكوته قولي بيسو كوكو مرتقاضي إمو
حتى هدو مسكين أنا وحبها يسيه نبي صلوات الله وسلامه عليه كوا أبو فقير سن هبر مسكين أو ويله أو وحبها يسن أيا أنت ويرتحوجا برح يصلوا لي وحلا من السينيس مركزه سن إن بإصدرين سينين وأنتوا جوري جيد التقو أيو كعنيه لماذا وحق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم هأورن ورنيه قضاء يدي جوري جيجي بريميس قلتي تيرثا نوغا بسليده غوريغاغا يركا وخفرفن وان لا فريسان كرين oo canjeelada garcadaha laga cunayo hanagu lugoyn la qalbigiisa ilaali xaqa uu kugu leeyahay way saas darteed bi hatta nabiga waxa ka soo aroortay xadiis ah hadii qofku uu ku yeero oo uu maxaa ku raahday walaalkii uu u yeero ida daa maxaa ku raah ahadukum akhahu falyujib fa in kana saa'iman فليصلي وإن كان مفطرا فليأكل هدي حتى أتصومنتهي كقيب الحفلة إيه قابت لكن أدعي عنتظر مركا إناد عنتو قصب قماه وصلاة سنه صنكا وفرس كقيب قل لكن دعي مركا كي أفرنها عنه كي صومنها دعي حيث تصيصا وحقا أكوله وحكم ذا الإحسان سمفل iyo maxaan ku raahday oo kiibuka iyo kii jiran iyo kii gaajaysan iyo kii dhiban iyo kii murugaysan iyo kii walwal uu ku jiro iyo kii laga dhintay iyo kii dhibanba in aad mid walba wanaaga u mudan yahay aad ku qaabisho nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi hadith abi hurayra fi sahih muslim haqqul muslimi ala al muslimi sitt idha laqitahu fasallim alayhi wa idha da'aka fa'ajibhu wa idha istansahaka fansah lahu وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أخرجه مسلم في صحيحه وفرس طيب نقطة أفراد ومحي علامتها إيا تلمامها إيا الطريقية لغو حقيقين كرو ولا التنمى سؤيني جرت أسبابته أما وسائش أما صيدا أوكالي وحل يراهض مظاهرة مقالة laga dheehan karo ama wasaaisha lagu xaqiijin karo walaaltinimada maxaa kamida waxa kamida al-kaffu an hurumati qofka kan waxyaalaha xurmaadkiisa tilmaamaya ama xurmadiisa in aad u deyso oo maxaa kamida naftiisa waa inaad badbaadiso maalkiisa waa inaad badbaadiso cirdigiisa waa inaad badbaadiso laakiin isaga oo walaal kula ah inaad tiraahdo haddana waa dilaya ama waa dhacaya ama waa aflagaadaynaya waa caayaya sax ma saas darteed waa calaamadaha muujinaya walaaltinimadaas xuquuqdeedii inaad ka soo baxday walaaltinimadaas inay kugu weyn tahay waa wasaaisha iyo calaamaadka iyo madaahirta muuqaaladeeda waxa kamid ah at-taamul at-tayyib ma'a in aad si wanaagsan ula tacaamusho dhaqan kasta oo xun aad ka dayso سجعل الله إن لقول رقم إن هذا رقمت وحكمده عدم التعيير أو التعييب بنسبه أو قبيلته أو شكله أو أي شيء من خصوصياته إن هذا كل عيبين وحيالها أجاركه بل الشريسة قبيل كيسة مذب كيسة قاب اسميت كيسة در كيسة وحكست أجار هكل عيبين سببتم حيتاي waxaan ma uu dooran intooda badan isagu anu inaan reer hebel ka dhasho doorashadayda maahay inaan beled hebel ku dhasho doorashadayda maaha haddana wax tilmaamaya qofka kani in uu macna u ku leeyahay maahayn in allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وفرس سيدوك إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفرس ساسو ليه إلهي سبحانه وتعالى النبي صلوات الله وسلامه عليه لقوري حديث أبي ذر صحابي اللي إرادة وريني وحيري نمبا وحن كعاي نمبا عاي وحنا أكيري يا ابن السوداء كي إسلام تمدو أيضا شيو أنا صحابيه مركز النبي وحيري بيري أعيرته بأمه يا أبا ذر أعيرته بأمه ورمه يدي ساتكو عيبيس
إنك امرؤ فيك جاهلية من تلمان يا خصلت يا صفة جاهل نمو أي كجرتاته وفيرس مرك حديث كورينا إياه نينك كورينا إياه وحلا كل ما ميل يد الرب ده أيوه كل ما مركز صوح وأرك إسقى إياه أضان أولها أو إسكت رقبة سيكون أولى بسيه بأولى بسيه مركز ويدي مركز صوح يري ساسا يقول عضي نبينا وحي يري ضد كان وولالهين سي وناكسن أولا دقمة حديث كو دارا مركز وحن قان كو قاريب ويري سيدان أنه الله إنه عد كستو إلى النورات وكمل يهني كان أضان كإياه وفرس ساس دارتين قف كان هكول عيابين خير هبل باتهي لانقاب باتهي نصب لمن باتهي سيدان باتهي أنا كالان دير أنا قو سيدان بانهي وإسك خيالي صوماليدو gaar ahaan laandheer isugu faantaa laakiin waxa ajaa'ib ah ummad adduunka ku nool oo bilyan iyo 400 milyan China ama Hindiya oo kale wax naf lama kala badna bilyan iyo 200 milyan ah ayaan isugu faanin ana kaan laandheer iyo ana ka badan laakiin ummad gebigeeduba 12 milyan ah oo reerahaas aan ka sheegayno hal warshada inta ka shaqeysay ay ka badan yihiin ayaa waxa laga yaabaa maanta oo dhan waqtigu wuxuu kaga dhumay annaga idinka badan iyo annaga idinka maxaa kala badan meesha bacidi ma joogtee magaaladaas aad aragto ama magaalo kasto Soomaaliyeed intooda badani qof baa loo tirin karaa dadka dariiqa maray waxaan galay hadda safar labadan degmo oo Dangorayo iyo ayl bari iyo Dangorayo qaybteedan inteeda badan waliba marka laga reebo intan qararkan xaggan xigta ayaan soo marnay marka waxa laga yaabaa 20 kilomitir inaad socoto qof arag way dadkaas la sheegayo badan oo laandheeraha oo kan ah oo xaggan ah oo sidan ah xagee jooga gebigeenu inagu xaajiyad mugeeda inaynu adduunka isbuura saarno nooc kale u dhaqanaay mas'ala saxama saas darteed waa inaynu qofka aan lagu ceerin markaas inagii hoos isu galay oo qabaa'il iyo ummado ina kamida waxaynu niri gabadhoodu guur ma leh oo waxaynu niri lama yeeli karo oo noocan ma anagu kaba guursan karno oo hadaa tiraade bal waxaad ii sharaxdaa sidee qofkani uu ku mutaystay waa hore waa sheeko la soo kala wariyay ayaa nin awooweyda baqti cunayo sidan ay ahayd oo adeer baqtigaas laga yimid yaasay baqtiga sootii hadii nafsi kugu kaleeto sharcigu u baneeyay ma adiga si awowga inuu baqti cunan yaa daliil kansa yaa daliil hadda si adiga isku mid baatiin isku nooc baatiin isku aqoon baa laga yaab kayf waa nooc iska badawnima waxa kamid ah tilmaamaha lagu xaqiijin karo in aad walaaltinimadii gudatay ama ay dhacday waxa kamid ah al-ithar qofkan wax naftaadu ay rabtay inaad u doorto naftaadu waxay jeclayd inaad siiso nabiga sallallahu wa sallam alayhi saxaabadii markuu sida u walaalay ay hore u tilmaamay ayaa ilaahay quraan soo dajiyay oo ku amaanayo qoladii reer ansaar ee magaalada loogu yimi markaas ilaahay wuxuu yiri walladina tabawwa'u ad-dara wal iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نفتوضا وحي أباهنيد بي أدوريان حتى هذي باهي أقبان أفرس وإيثار كاس كوا كدن بينا وحليل أو إنك إيضدك إنا كهري كوا إنا كسي دنبيبا وحيلاهي كوا أماني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقولون إني أدعين إيان كوا كهري sababta qofka inaad u ducayso maxay ku tusaysaa inaad jeceshahay oo aad rabto oo uu kugu weeyahay inaad u ducayso waa tilmaan waxa kamid ah qofku wax kasta uu naftiisa la jecel yahay inuu la jecel yahay la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi qodobadaas oo dhan xadiithu abi hurayra hadaynu u daliishano fi sahih muslim نبي صلوات الله وسلامه عليه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا
ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحضره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه في الحديث كقيمه كاسوح للنبي حس ديننا وبيع حس كفل لسننا يسقو غرغردي كجرا إن أدميد خيانة انتو يماده اسنا ويراد انت كان markuu kor u kacana looga baxo ma banaana hayso aroonina dhabarka hayso jeedinina oo kala taginina qofka kale bayciisa yuu gadan waa maxay waa bay'a bil khiyar ku jira hebel iyo hebel ba gaarigan ku wada heshiiyay inta inay markaas wuxuu yiri maanta baan khiyar haysanaa aan soo fiiriyo gaariga iska eego markaas aad afka u soo dhubto tiri warbelo warana ku haya gaari noociisa oo ka jaban ama wariya madqan baa tahay gaarigan suuqaba waa ka go'an yahay $5,000 baa $7,000 baa suuqa ku helaysa fiiri nooca aad sameeyay iyo khiyaanada aad gashay وفرس وأد مركا أدوغو أتراد أنا إنتا كاسيني شنكون أنا كاسيني أما أتراد لنا عكالي أنا إنتا كاسيني قارئ ما بنانا وحكم ذا وحيالها كيني كره التخلص من القبلية المقيتة أو القومية أو العنصرية أو الحزبية وحكستأو قارنما ونوعي تهيبا قفك كان إنو كتخلصه وبحاشا قبل ماذا لغا راعو وكر لغا إيغو ومسلم أردن ولا لغا ديكتو لكن حوغا ير وأد اسكتولته أما أد اسكريرته آذن صوغا شندبت وآذن انتنا إيغو فلان وحن يري أديكو هيري كلا مسلم أردن هل بليون يزيادو بي أدونك كيهين أفرميلات بي كدويهين دادك أدونك هذا كنور وحان أجهدا وحي كيهين ربع بي كدويهين ساستانتد بليون يزيادو أضو ولا الكدقان كرا حوغا ير ودور بقرة وآد اسكو حيبتهين أما آد اسكو ديغان تهين إناد كوكوبناتا عيب بي كوكوتا فقرده قدام بيسا وشناد وأهوام حيث المامها مجتمع يقفك بأيكو سمين كرتو هذه ولا تنماذا نطبقه كو تحقيق الوحدة والمنع للمسلمين إن مدنمو اعتماده وحان كشك إن مركي دعضو مسلم أو دنبا مدوبة ولا نقنية هدو السعودي هي هدو الصومالي هي هدو فلسطيني هي هدو اندونيسيا هي مدبا لنقنية وحكم ذا المؤمن للمؤمن كالبنيان صنبه مورا وحكم ذا وحيالها حقيقين يسوي فوائد كإيمانيسا زوال الفوارق القائمة على المستوى الاجتماعي والاختلاف الطبقي فرق قدتك أولا حيا إنه كبحو ماشي كوحيسي سياسة كودسنا كوحيسي دين كودسنا كوحيسي قبيل كودسنا كوحيسي ديغان كودسنا كوحيسي ده كل انتاس أردن ولا أقولي إن ورالتنمو يمدنمو وحلقوا وضو والرير هبل ده بكيلة ونيني يبرماه ساسماه وإن اسكو سياسة دوضا ويوضا كران وإن كوكان عضي إني دينتا إسلام باحيان ويودي كران وإن مقالات دقني تعاون وكرحين كران لكن وحلقوا وضا إن اللوغو قورنتي أصل كاحي إنتاني iyadoo intaas ay jirto inta tan lagu darsado saas macnaheedu ugu jeeda saas darteed faariqaas meesha ka baxaya waxa kale oo tuqaddim tahqiiq at-taqaddum wal hadara umadu inay ilbaxnimo yeelato xadaarad inay yeelato horumar inay yeelato oo muslimiintu markay midaysnaayeen oo ay umada kaliya ahaayeen oo hal meel looga talinayay oo hal ummada ay ahayd hal caasimada ay lahayd 200 sano waqti aan gaarin ayay adduunka intiisa badan qabsadeen dawladihii ugu waaweynaa oo dawladii Roomaanka ee dhulkan maxaan ku raahday Shaam iyo wixii ka shisheeyay ka talin jirtay iyo dawladii Fariska ee Bershiyaanka ee Iraq iyo Iran iyo dhulkan
كتلين جرتي وضن كاس أردن أنت اللي سكوير يبحي كذب بياي وحير بيك قط خلوسين تدبيه تبندو لام بيجيبي قضب قصة أفجره وفرس لابا بقولوا صار وقت أنجارين بأندلس بورها فرانسيسكو قدين بنا عنا أي جارين روش كي محنكر هذا يوروب تبري لنا عنا أي منغوليا يبريق جينا أي جارين لنا عنا أفريقيا أي سو جارين وهل كان يسحابه كسر دقيق أو وضنا بدن للأولين ده وأدونك أنتي سبضناي وقت أنت على يكفيل وقارمة وقت متك الله ولا التنمد أي شقينيس لكن صبح الدم أو كح يرير نيلو دقيق أو قلوا والبه أنت ير إيش هذا أي أركتو كلي أي أركتي وحلقت حلي وحأد أركتان وحكمت فائدة لجه ليه إلهي الله هنشيه سي جنة سين لجوهها ولا التنمد مسلم لماذا إيمانك كل سن جنة لجوهها لا يؤجاد وهي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم مسلم أي كوري في صحيح ما وحوير النبي الجنة مجل الدونتان إلى آد استعلاطان إسنا جعلان ميسان إلى آد مؤمنين نقطان بانوش هذا مؤمنين لبنا من نقن دونتان إلى آد استعلاطان وقلبك حبي ولا التنين يكالقعن ويسبوكين كم markaasuu wuxuu yiri waxyaabaha isku jeclaanaysan waxa kamida nabadda iyo salaamta inaad badisaan طيب waxa kamida ilaahay hawskiisa in la harsan doono maalinta qiyaame oo dadku ay dhiban yihiin intii walaaltinimada islaamka ku walaalowday oo qalbigooda walaaltinimo sax ay isu gelisay marka ummaddu ay dhiban tahay oo carshiga maxaan ku raahday banka iyo carasaadka qiyaamo la tuban yahay iyagu dhibtaaba ma qabaanba markaas nabigu wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi maalinta qiyaame toddoba qolo ayaa hooska ilaahay harsan doona waxa kamida laba nin ama laba qof oo ilaahay dartii isu jeclaaday ku kulmay kuna kala tagay wufis waxa kamida xadiis mucaad oo tirmidhi ahmad ay warinayaan sheekh al-albani uu leeyahay waa xadiis saxiixa muxuu yiri nabigu ilaahay baa wuxuu yiri المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وحاو يري إلهي ضدك أنيق درتي إسوجع على إيا وينان تيدا إيا قدرين تيدا مالنت قيامة وحي كفر ليان منابر إيا من برا إيا كراس دار والنور كسب يسنبا لغفة يسينيا وعرشك إلهي الله أصلي markaasa dadkaas darajada iyo karaamada ay haystaan anbiyada iyo ilaahay iyo shuhadada ayaa baakuniyaya waxa leeyahay war dadkaas maxay heleen waa kuma kuwa reer hebel iyo tuula hebel iyo deegaan hebel iyo qaarad hebel iyo ma ah waa dadkii diin iyo walaaltinimo qalbiga isugu jeclaaday isku xiriiriyay walaalo dhab aan noqday oo dib iyo dheefba ku wadaaga ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu kuwa ina ka dhigo sida hadaynu noqonana guul adduuniya mid aakhiraba gacanteena galaysa hadii kalena xalku Allah